maxaad ka taqaanaa daawada hogaamiyaha muslimka ee loo yaqaan askariga daacadda u ah Vladimir Putin? Ramzan Ahmed Abdulhamidovich waxa uu dhashay sanadkii 1976 waana madaxweynaha jamhuuriyadda Chechnya ee shacabkeedu yihiin muslimiinta. Ramzan Kadyrov waxa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay ragga aad looga cabsado ee dalka Ruushka, waxa uu saameyn awood badan ku leeyahay dawladda federaalka ee Ruushka. waa gacanta birta ay madaxtooyada Kremlin-ku u adeegsato sugidda amniga iyo ilaalinta xasiloonida gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee ismaamulka Khuzestan. hawshaas waxa uu hayay in ka badan 10 sano. jamhuuriyad hoosaadka Chechnya ayaa noqotay mid hoggaankiisa aysan cidna loolan ku geli karin. Ramzan Kadyrov ayaana u muuqda meel uu si gaar ah u leeyahay. hogaamiyaha gobolka Chechnya Ramzan Kadyrov ayaa waxa uu 25 bishii Febraayo ku dhawaaqay in dagaalyahanada Chechenka ee isaga daacadda u ah ay ka barbar dagaalamayaan militariga Ruushka ee gudaha u galay dalka Ukraine. Kadyrov waxa uu horay taageero ugu muujiyay fallaagada taabacsan Putin ee ka dagaalama bariga Ukraine iyo gobolka ay Ruushku goosteen ee Crimea. ninkan oo saaxiib dowlaha madaxweyne Vladimir Putin ayaa lagu tilmaamaa nin daacad u ah xukuumadda Moscow ama askariga daacadda u ah Vladimir Putin. madaxweynaha Ruushku waxa uu qaatay go'aan sax ah, annaguna amarkiisa ayaan fulinaynaa ayuu ku yidhi khudbad uu ku dhiirigelinayay ciidamadiisa. waxa uu muujiyay inuu la dhacsan yahay tallaabada uu Putin weerarka ugu qaaday dalka Ukraine oo wadamada reer galbeedku ay ku tilmaameen xadgudub lagu qabsanayo dal madax bannaan. lama cadaynin tirada ciidamada Chechnya ee uu Ramzan u diray dagaalka ka socda Ukraine, balse wararka ay qaar ka mid ah warbaahintu tabinayaan ayaa sheegaya inay kor u dhaafayaan ilaa 10,000 oo dagaalyahan. dawladda Ruushka ayaa iyadu xaqiijisay in khasaare la gaarsiiyay ciidankeeda gudaha u gala Ukraine oo laga dilay qiyaastii 500 oo askari, balse Kadyrov waxa uu sheegay in ciidamadiisa ilaa hadda laga dilay 2 askari oo kaliya. hase haatee waxaa lagu soo warramayaa in tirada ka dhimatay ay intaas aad uga badan tahay. dawladda Ukraine ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay inay baabisay cutub ka tirsan dagaalyahanada Chechnya oo gaadhay magaalada caasimadda ee Kiev, iyagoo ujeedadooda ay ahayd inay dilaan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa Mr. Kadyrov ku eedeeyay inuu geystay tacadiye isugu jira jirdil, maxkamadayn iyo dhibaatooyin kale oo ka dhan ah dadka laga tirada badan yahay. dadka isaga ka soo horjeedana waxa ay ku eedeeyeen inuu geystay dilal badan oo qorshaysan oo qaarkood ay ka dhaceen gudaha Yurub, balse Kadyrov dhankiisa wuu beeniyay inuu ku lug leeyahay falalkaas. waxa uu ka mid yahay dadka ku dhow Putin ee ay saameysay cunaqabataynta ay ku soo rogeen dalalka midowga Yurub iyo Mareykanka. sanadkii 2020 shirkadda Instagram ayaa Kadyrov ka xirtay ciwaankii uu ku lahaa kaas oo ay ku taxnaayeen in ka badan 1 milyan oo ruux. tallaabadaasi waxa ay qayb ka ahayd cunaqabataynada ay ku soo rogeen Mareykanku, halka shirkadda Facebook ciwaankiisii ka xirtay sanadkii 2017. si la mid ah Putin, Ramzan Kadyrov isaguna waxa uu jecel yahay inuu meel walba laga arko. waxa uu xuseeyaa in la arko isagoo hubaysan, sidoo kalena waxa uu taageeraa tartamada legdinta. sanadkii 2017 madaxweyne Vladimir Putin ayaa u magacaabay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Chechnya. Ramzan Kadyrov aabihi Ahmed Abdulhamidovich Kadyrov oo madaxweyne loogu doortay doorasho lagu shubtay oo dhacday sanadkii 2003 ayaa dhowr bilood kadib lagu qaarajiyay weerar loo adeegsaday bambo. Ramzan Kadyrov waxa uu leeyahay ciidan u gaar ah oo aad looga cabsado kuwaas oo lagu magacaabo Kadyrovis. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa maleeshiyaadka daacadda u ah Mr. Kadyrov ku eedeeyay inay falal isugu jira jirdil, afduub iyo dilal qorshaysan ka geysteen gobolka Chechnya oo ah gobol ay ku badan yihiin muslimiinta oo ismaamul yeeshay sanadkii 1990.